اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف. الشرط السابع شرطي تضباد المتابعة الراعي سوي متابعة يا شرطها. فإن قارنه هديو لحريرسده إمام كيس في التحرم حرشده هدو لحريرسده متابعة وإنه انت كدن بيسو دبا السعوداء مقارنة هدو سمية تحرم كان أو لحريرسده حرشده اسكو مرأي حرتان بضالات سلادي سوا برتي سلادي سبا دي لنقانيسا. وكذا إن تقدم هدو كهرمرنا الله مدوي عليه على الإمام إمام كدوشي سادي وكالهرمرو بالركنين لبا الركني هدو كالهرمرو ركنين كاسو فعليين أو فعلو نسبي لبا ركني أو فعلي هدو إمام كيسا كالهرمرنا سيدو كالويو إمام كي ببسي هرسعدا وهل ركني ودافل لبا ركني وفعلي كالهرمري أيضا الصلاة دي سبا دلوي أو تأخر أما وكلا قدال مرو عنه عن الإمام إمام كي هدو كلا قدال مرو بهما لبدي ركني أو فعلي أها لغير عذر لآن هدو كلا قدال مرنا سيدو كلاوي عذر لآن هدو لبا ركني أو فعلي هدو كلا قدال مرو أو وليبا دير آن لبا ركني أو قابان أهين هدو كلا قدال مرنا إبروي. وإن قارنه هدو لحرشده إمام كيس في غير تحرم حرشده غير كيده xirashadii waxaan ahayn uu imaamkiisa la xiriirsaday oo wuxuu la xiriirsanayaa faatixadii isku mar bay dhamaynayaan maxaa tiraahdaa waa wada isku mar ay rukuucayaan isku mar ay ictidaalay isku mar ay sujuudayaan muqaaranada afcaasha ayuu samaynayaa aw taqaddama ama uu ka hormaro calayhi imaamkiisa biruknin hal rukni uu kala hormaro rukniga ficliyin ficil loo nisbeeyey aw amase ta'akhara uu kala gadaal maro canhu canil imaami imaamkiisi xagiisa bihi birukni uu kala gadaal maro rukni ficliya uu kala gadaal maro lam yadurra ma dhibayso markaas dhibi mayso laakiin macal karaaha waa karaahiya laakiin macnaha budlaan keeni mayso oo salaadii ka buri mayso waa kana wayaxrumu dhe تأخرك محوها إيو تقدمك أو بغير عذرنه وبحرام ويحرم وها حرام نغنيو تقدمه ماموم كهرمريديس عليه إمام كدوشيس إنو كهرمر بالركن إن كهرمر ركن هو فعليا فعليا إنو ركن فعليا إمام كيس كهرمراي وبحرام حرام وي إمامك سيهر سعود. وإن تخلف هدو كلا قدال مرو بعذر هدو لك قدال مرو وذلك مثال كبدء قراءة قراء عليسكي وي وعذر كاسا وحاكم ذا قراء عليس مامومك يا قراء علوس إمامكنا وقراء واد الدجينيا بلا وسوسة وسوسة الآن ومعها وسوسة وكدب دعاية وقراء عليس واشتغال الموافق وكاشتغال الموافق كي إمامك لحرتي وصو وافقي اسكو شغلديسي ويه يولد بدعي وحا عذرك كم من نقنيو كبدء القراءة يو اشتغال الموافق وكاشتغال الموافق مدكي لحرتي إمامك وصو وافقي صلاة أن مسبوقة هين موافقة إمامك لحرتي اسكو شغلديسي بدعاء الافتتاح واسكو شغله دعاء الافتتاح واسكو شغلي دعاء الافتتاح ku dheeraaday muwaafiq buna ahayo waa la amray inuu ducaa iftaax akhriyo masbuuq lama amrin da masbuuq tahay oo dib kaga soo haleeshay imaamka ducaa iftaax ma akhrinay sidee hore baa ka guda galaysaa qiradii waajibka ahayd marka qofka masbuuq ah ducaa iftaax buu isku shuglay oo la amray inuu soo akhristo saas uu ku dib dhacay أو ركع مسا وحو ركوعي إمامه با ركوعي إمامك سيبا ركوعي مركو إمامك ركوعي فشك وحو مامومك كشكي في الفاتحة فاتحة دي
faatixadii ku shakiyay talow faatixadii ma akhrisay mise ma aadan akhrin markaasuu faatixadii markaas kadib bilaabay saasuu la dib dhacay aw tadakara wuxuuba xasuustay tarkaa ka tegideeda shaka maahane wuxuuba xasuustay faatixadii inuu ka tegay buu xasuustay markaasuu faatixadii hadda iyo koob bilaabay saasuu la dib dhacay aw asraca alimaamu imaamkii baa degdegay wuu ku degdegay qiraa'atahu qiradiisa asraca alimaamu imaamkaa dadejiyey buu yidhi qiraa'atahu qiradiisii buu dadejiyeyoo aad buu u qiro fududeeyey markaasuu la dib dhacay markaa ma'muumkii saas qiradaas uu isaguna soo akhrinayo la dib dhacay cudira intaasoo dhan waa loo cudrayaa ilaa goorma ilaa 3 arkaanin ilaa 3 rukni laga gaaro ayaa loo cudrayaa inuu soo dib dhaco arkaantaasoo dawiilatin dheer 3 rukni oo dheer ilaa imaamku uu kaala hormaro waa iska soo daba soconaysaa macduur baa noqonaysa waa lagu cudrayaa 3 rukni oo dheer marka maxaa weeyaan waxaan ku jirin dawiilatinta marka rukni arkaanta gaaban kuma jirto i'tidaalkii kuma jiro juluuskii been sajdaynka ahna kuma jiro 3 kale inuu kaala hormaro baa lagu cudray laakiin 3 haday dhaafto waa kan soo socotaaye masalan adoo weli qiradii akhrinayo ayuu rukuucay waa soo i'tidaalay i'tidaalka loo tirmayo rukuucda koowaad waa sujuudi koowaad waa mid labaad sujuuda koowaad juluuska been sajdaynka lagu tirimayo sujuuda saddexaad buu galay sujuuda saddexaad marka adoo wali qiradii ku jira hadduu ka soo kaco waxa weeye waxa laba mid baa ku furan in aad meeshiisa kala socoto rugnigaan aad ku dhex sugan tahay ka tagto ee asaga aad la socoto raacdo meesha hadda uu marayo kala socoto oo ragcaha dhumru salaada dhamaysto gadaal kala timaado ka bedela arkaantana ka tagto iyo mufaaraqa inaan yeesato oo kaba goosato ama laakiin haddii isagoo rukniga saddexaad ku dhex jiro sujuudii labaad isagoo ku dhex jiro yaa rukuucdii soo gashay bis markaa waa daba soconaysaa marka waa soo daba soconaysaa فإن زاد هدو زيادة بمركا أو صدح دار ركنية طويلة وكزيادة نول مفارقة وكان مفارق نيسانيا أو وافقه أما إمامك وافق ياوي وأتى بركعة بون الله إمانا يميش هذا أمر إمامك مركو وافقه ووحي ودحي يسكتو كسوتاقو أيو مركا وحي الله إمانا يا بركعة هل ركعه وأتى بركعة بون الله إمانا بعد سلامه إمامك سلامه سيكس بعد كده markii imaamku salaam naqsad bacdigeedu hal ragca uu la imaanayo hada xukumkaani kulluhu dhamaantiis fil muwaafiqi buu ahaaday ahkaamtan aan soo sheegnay dhammaan waa fil muwaafiqi waa kii imaamka la xirtay imaamka midkii marka wuxuu ahaa imaamka la xirtay baa iyo xukumkan iska leh وهو موافقنا من قف ويأدرك هلالي مع الإمام إمامك معيسى قادر الفاتحة فاتحة قدر كذا كهلالي موافق وقفك إمام كيسة استاجوا كوات كسر هلالي قدر الفاتحة فاتحة قدر لقى آخرين كراك لا أيو استاج كوات إمام كيسة كسر هلالي موافق وكا إمام كيسة وافق قدر فاتحة ولا ما ينكره وأما المسبوق مدكي لغا دقم يا ربتا oo salaada qayb kamida laga la hormaray oo dib ka soo haleelay ida waqtiga rakaca oo rukuuc rakaca imaamku uu rukuuco fi faatihatihi masbuuqa faatihadiisa dhexdeeda hadii imaamku rukuuco masbuuq isagoo faatihadii wali ku dhex jiro aan dhamayn imaamkiisa haduu rukuuco fandur adug marka kala fiiri oo in ishtagala haduu isku shuqlay masbuuqani بسنة سنة هدو اسكو شغلي مركه هره او خرته هدو سنة اسكو شغلي دعاء الافتتاح تعود يا احا اسكو شغلي كالدعاء الافتتاحي وهي سنة دعاء الافتتاح او التعود اما ساعود بليسي هدو اسكو شغلي قرأ او اخرنا يا مسبوق بقدر ما اشتغل وحو اسكو شغلي قدر كيدي وكله اي فاتحه كاخرنا يا واجبه ثم مركو فاتحه قدر كي اسكو شغلي سنة او كله فاتحه كاخريو
in adrakahu hadduu imaamka haleelo fi rukuuci rukuucda hadduu asagoo qadarkii lagu lahaa oo sunnada isku shuqlay qadar la eg faatixadii ka akhriyay markaa kadib haddana rukuucda ugu yimi rukuucdii uu ku haleelo adraka ragcata ragcadaas waa haleelay ragcadaas waa maxsuubay u tahay ragcadaas qof haleelay yuu noqonayaa wa ilaa hadduusan imaamka ku soo haleelin qadarkii uu isku shuqlayna oo sunnada ahaana faatixada ka soo akhriyey ama yuusan ka soo akhrin faatadhu ragcadaasi way ka tagtay ragcadaasi way ka tagtay oo ragcadaas qof haleelay ma noqonahayo wa waafaqahu imaamkiina wuxuu ku waafaqayaa meesha markaas uu joogo imaamkiina meeshuu marhayo ku waafaqayaa wayaatii biragcatin ragcana gadaal kala imaanaya hal ragcana gadaal buu kala imaanaya wa lam yashtaqil marka hadduusan isku shuqlin bisunnatin sunno oo markuu xirtay sunno isku shuqlin faatixadii hore ka bilaabay oo is og yahay inuu masbuuq yahay ila masbuuq lama ogola inuu sunno isku shuqlo hadiiba masbuuqaad tahay gadaal qof ka soo xirtay aad tahay waa xiranaysaa waajibkii qirada waajibkaada hore ka gudagalaysaa hadduu marka qiradii waajibka ahayd uu hore ka gudagalay wain lam yashtaqil hadduusan isku shuqlin bisunnatin sunno qadaca alqiraa'ata qiradii buu goynayaa qiradii markuu meeshuu marayo ayuu ku goynayaa marka imaamkiisu rukuuco wa rakaca macahu imaamka maciisu la rukuucaya qiradana meeshay maraysuu ku goynayaa faatixadan sii dhammaynaya imaamkii kadib dhacaya looma ogola masbuuq baa tahay imaamka inta kaa dhiman kaa xambaarayo faatixada meesha ay marayso markuu imaamkaaga rukuuco meesha aad maraysid ku jooji haddaadan awal faatixa waxaan ahayn isku shuqul wax faatixa ka horreeya haddaad isku shuqushana qadar intaad isku shuqushay la eg faatixadii waa adoon ka akhrin ha rukuucin intaad isku shuqushay ducadii aad isku shuqushay markaa oo faatixada ka horreysay masbuuq haddaad ahayd qadar la eg markaa faatixadii ka akhrisid haddana isku day marka inaad rukuucdii ku gaarto adoo qadarkii soo akhri lagugu lahaa markaa rukuucda haddaad ku gaarto ragcadaasi maxsuubo wey haddaadan ku gaarin ragcadaas kuuma xisaabnee salaadda ha ku tirsan halkaa waa lagu dhiban yahayoo qofku masbuuq ah intuu faatixadiisa iyo hawshiisa iska soo gudagalo marba hadduu qiyaamkii uu ku soo xirtay isagoo imaamku taagan yahay lagu xirto maba la aaminsanaba in rukuucda haddana inaad la rukuucdo lagaa rabo waxaad arkay qof la arkay qiradiisu iska wadanaya imaamkii waa rukuucay qiradiisu iska watay waa soo ictidaalay markaasuu isaguna iska rukuucaya markuu imaamkii soo tegay kadib maya taas lama rabo waxaa la rabaa haddaaba masbuuq ahayd faatixada markaad akhrisid faatixada intii waajibka ahayd oo ku gaabsanaysaa haddaad ka ziyaado akhrisayna faatixadii baa ziyaadada aad akhrisay qayb in la eg oo kale faatixadii baa ka akhrinaysaa haddana rukuucdii inaad ku haleeshida laga rabo isagoo kaa xambaaray wixii kaa dhiman rukuucda markaasaa ku haleeshid salaada maxsuubay kuu noqonaysa ragcadaasi فصل هذا كان فاصل وي ومن أدرك الإمام المتطهر راكعا ومن أحد بير أدرك الإمام إمام كي هليلا إمام كسؤال متطهر إسقو الدهار قبي إمام ويسقوه أيو هليلي راكعا حال ويهي إمام كاسمد ركوع سن ركوع دو كسو هليلي وضم أنه حسلي معه إمام كاس متطهر كا معيسو حسلي قبل ارتفاعه وركوع دي كحسلي قبل ارتفاعه إمام كسوكر نقشدي سكهر أدرك الركعة ركعة سوا هليلي هل كان مسألة دقيقة كجرت dadku ku ibtilaysan yihiin isagoo rukuucsan imaamkii ayaa la xiranaya Allahu akbar markii la yiraahdo rukuucdii baa tagaysaa haddaad rukuucdaas imaamku isagoo weli soo kicin duma'niinadii laga helo rukuucdaas waad ku haleeshay waana ku ragcadaasna maxsuubay ku tahay marka rukuucda sii galaysid hadduu asna soo laabto uu soo kaco adoon weli ku xasilin rukuucdaadii yuu ragcadii ka soo kacay imaamkaagu waa ku yaqiin
waxaa laga rabaa markaas ragcadaasi kuma xisaabna gadaal hadhow waa kala imaanaysaa ragcadaas ilaa imaamkii kuma aadan haleelin haddii yaqiinku tahay ragca la imaanaysaa sujuud sahwina lagama rabo asagoo rukuucsana ku soo xiratay asagoo rukuucsan markaa ku soo xiratay intaadan adiga ku xasilin rukuucda dumaaniina soo shardi ma ahayn yuu ka soo kacay waana ku yaqiin inuu intaadan xasilin inuu soo kacay hadhow ragcad ziyaadaha la imaanaysa ragcadaani kuma tirsanaa haddii marka aad ku shakisid imaamkii uma jeedida takbiirtiisa maqlaysaa oo waxaa ku shakisay in uu intaadan xasilin soo kacay iyo markaa xasishay inuu soo kacay labadaas mid ay tahay baa ku shakisay ragca la imaanaysaa ziyaado ah sujuud sahwina waa ku daraysaa waa inaad ku gaartaa qadra dumaaniina waa inaad ku xasishaa haddii aad ku shakisay sujuud sahwi waa ku daraysaa haddaadan ku shakina yaqiin ay ku taana ragcada kaliya la imaanaysaa sujuud sahwi ku dari maysid وإن أدرك هدو على لبره إمامك هدو على في ركوع هدو كهلا ركوع زائد الزائد هدو كهلا ركوع زائد وكهلا أو محل ركوع زائد كاهي وهو ركعة خامسة أتاجن يهاي وسهو أتاجن يهاي بكسها لا شيء أمس وحويان أو أمس في الثاني ركعة دي اللبات بكسها لا ركوع دي اللبات من الكسوفين ورحمة الله كده رحمة الله كم ده ركوع اللبات oo dayaxmadabaadka quraxmadabaadka ayaa ku soo haleesha lam yudrikha ragcadaas ma haleelin hadii ragcada rukuucda uu imaamku u taagan yahay ragca khaamisa oo sahwi ugu taagan yahay ay ahayd faatixa kama xambaari karo ragcadaas kuma xisaabna imaamkii waa jamaacadii waa haleeshay laakiin ragcadaas kuma tirsana rukuucda ama ku haleel ama ku haleel marba haduu khaamisa u taagnaa ay yaqiin ku noqoto kadib ka ogaato inuu yaqiin ku ahayd inuu khaamisa u taagnaa oo sahwi ugu taagnaa ama rukuucda ku soo haleeshay rukuucdii labaad oo salaatul kusuufka ay ahayd faatixa kama xambaari karo fasluna kana fasilun way ahaqun nas bil imamati al wali fayataqaddamu aw yuqaddimu ghayrahu ahaqun nas dadka kan ugu xaqnimada badan ugu mudan bil imamati imamnimada al wali weeye waa midka madaxda meesha ka ah fi maxalli wilaayatihi weeye waliba markuu joogo ninka madaxda ah maxal wilaayadiisa jooga al a'la fal a'la wa midba midku ka sareeyo ayuu imaam noqonaya haduu soo badaade jaahil xoog ku qabsaday lama rabo fayataqaddamu marka isaga hormarayo أو يقدم غيره أما غير كيسو هرمارين ياو إساقا أمر يدهي هبل أنا تجنيو ولو في ملك غيره غير كيس ملكي سدح يده هبل لتشوغ قري وسنة ساقو لهاينا وحاوي قري قاقي هدي لتشوغ نينكي واليقها وكوغو يمادو إساقا هرماريا أما عدو دانو هرمارين يا قري قاقا وكاقا ما نحسين ياو وساكن مدكي دغنا بملكن غريغا دغنا لوو دكانيو محل صلاتك كي دغنا بملكن ملكي كو دغنا غريغيسي او اها او اعاره نما عاريه كو دغنايو مالغي لها او عاريه سييدو سدا عاريه ugu دغنا او اي اجاره نما اجاره كو دغنا او وقف اما وقف كو دغنا محل صلاتك او وصيه اما دردارن لو دردارمي كو دغنا أو نحوها أنت وحلا ميدا كدجنا نحوها الله وحلا ميدا كدجنا يتقدم يسقى هرمريو إمام إنه حق ولا إنه هرمر أو يقدم غيره أما غير كيسو هرمرنا يا أيضا مركلة قفك جوري سكد دجنا ونفعي سهايستا أيا يسقى التقدم كلا إنه هرمر يسقى على إمام نقضه ماشي لو جدك أنا قفك دجن oo milki ku dagan ama icaara ku dagan ama ijaara ku dagan ama waqaf ama wasiyo ku dagan iyo wixii lamid ah isaga taqaddumka iskala iyo taqaddamu aw yuqaddimu ghayrahu aydan illa an al mu'ira laakin an al mu'ira qofkii wax caariye galiyay axaqu isaga ku xaqnimo leh
min almustaciiri kii caariye qaatay guriga haddii aad caariye ku degan tahay qofkii ku caariye geliyo maaliga ahaa haddii uu ku yimaado anaa caariye ku degan gurigo anaa imaamka ku xaqle maya maaliga kaa xaqle markaas kii ku caariye siiyey ayaa kaa xaqle laakiin ijaaradu la mid ma ahan qofka ijaarada ku degan kii ka ijaarto guriga iska lahaa hadduu yimaado kaadu xagga iska dhigaal xagga iska tago maaligi waxa leeyahay xagga tagal leeyahay qofka ka kireystay nafcigiisa ka gatay manfaacadiisa guriga waa ka gatay qofka ka kireystay isaga imaam ka noqonayo wasayidu sayidkii wuxuu yiri ninkii sayidka ahaa xaqu isaga ku xaqnimo badan min abdihi adoonkiisii alladii adoonkaasoo laysa bimukatabin aan ahayn sayidku adoonku guriga haba deganaada hadduu rabe sayidkiisa hadduu yimaado isaga imaamnimada ku xaq leh adoonkaasoo laysa bimukatabin min mukatab aan hadduu mukatab yahay uma dhowaan karo wal imaamu imaamkii ar-raatib ee joogtada ahaa oo mawdacaas awal imaam raatiba ka ahaan jiray xaqu isaga ku xaqnimo leh min ghayri alwali waliga ghayrkiisa isaga kaga xaq badan inkii madaxda ahaa imaamka raatibka soo dhan buu intuu bedelo dhigi karaa aday xagga tag mid kale aan kugu bedelo dhigi karaa kaas lagama xaq leh ka madaxda laakiin inta kale imaamka raatibka joogtada awal ahaayo dadka meesha jooga ay doorteen kaas ayaa kaga xaq leh fayataqaddamu imaamka raatibka wuu hormaraya aw yuqaddimu ghayrahu ama ghayrkiisu hormarinaya thumma markaa kadib qaddima al-afqahu midka ugu inta kale hadii la waayo marka milki mid ku muta ama sukni iyo askun ku muta ama se markaasi waxa weeye waalinimo ku muta ama raatibnimo iyo imaam raatibnimo ku muta hadii la waayo oo sida lagu kala hormari waayo oo dad simana meel isku yimid hadda hor Allah ay tahay qaddima al-afqahu midka ugu fiqhiga aqoonta badan ayaa la hormarinaya imaam noqonaya ثم markaa kadib hadii fiqhiga ay ka sinmaan al-aqra'u midka quraanka akhrinta aqoog ayaa quraanka xagga qiraada ku fiican kaas la hormarinaya ثم hadii ay ka sinmaan qiradii iyo fiqhigii al-awra'u midka xalaal miiradka badan la hormarinaya ثم markaa kadib hadii waracnimadii ka silmaan oo la kala rajixi waayo man sabaqa bil hijrati baa la hormarinaya yuqaddamu waxa la hormarinayaa man sabaqa qofka dhaqay bil hijrati haajiritaanka huwa isaga laftirkiisu hijrada hadduu muhaajir yahay aw ahad aabaahi ama aabayaashiisa mid kamidii uu hijrada ku horeeyay aabayaashiisa hore la fiirinayaa haddii adiga waagii 10aad 20aad uu muhaajir ahaa ninkana sidoo kale uu muhaajir ahaa labada awoowe soo haajirtay kee hijrada ku horeeyay kaasa hijrada ku horeeyay asaga imaam noqonaya marka awowgiisu hijrada ku soo horeeyay waa ku sharafoobaya muhaajirnimadaasi iyo taqaddumkaas islaamku ku soo horeeyay nasabkiisu ayuu ku sharafoobaya asaga la hormarinaya ثم markaa kadib hadana yuqaddamu man baa la hormarinaya sabaqa islaamuhu islaamnimadiisu ay soo hormartay hadii hijrada ku soo wada horeeyeen ama muhaajiriin ba aysan ahayn man sabaqa islaamuhu qofka islaamnimadiisu soo hormartay hadii iyagu soo islaameen hadana iyagu soo islaamin aabadoodii midka islaamnimada ku soo horeeyay baa la hormarinaya thumma nasiibu kan nasabka wanaagsan baa la hormarinaya asharaaf iyo ka soo jeedada sharaf badan ayaa la hormarinaya thumma hasanu dhikri amaanta midka wanaagsan la hormarinaya midka amaanta wanaagsan oo dadka ku dhaxlay amaanta wanaagsan ayaa la hormarinaya thumma nadiifu thawbi maradiisu midka nadiifka taala midka dharka nadiifsan la hormarinaya dad buu dhaxaysa hor istaagaya ilaan thumma nadiifu albadani baa la hormarinaya marka hadana midka jirkiisu nadiif yahay baa la hormarinaya wadiibu sancati midka sancada wanaagsan la hormarinaya oo midka aan sancadaysa wanaagsaneyn laga hormarinaya hadii midna uu kabaha talo midna uu markaasi dharka talo yaa sanca wanaagsan midka marka dharka talo sanca wanaagsan kaasa la hormarinaya thumma hasanu sawti baa la hormarinaya midka sawtka qurxoon ayaa la hormarinaya thumma hasan inta kala haday ka sinmaan hasanu suurati baa la hormarinaya midka suurada jamaalka qurxoon ayaa la hormarinaya fa in istawu haday akaadaan intii la soo sheego dhan waa lagu kala rajixi waayay waa akaadeen
watashaaxaw wayna doodeen oo anaa imaam noqonaya anaa imaam hadday qof fudaystaan hadda warba kama taagne mid la arka wuxuu anaa kaa mudan way ku doodeen waana la kala rajixi waayey uqrica waa loo qori tuurayaa markaas midkii qorigu u dhaco kaasaa marka la hormarinaya walcadlu midkii cadaalada ahaabaa awlaa kaga habboon imaamnimada min alfaasiqi midkii faasiqa ahaa haddii uu faasiq iyo caadil kale yihiin midka caadilka ah ayaa imaamnimada ku habboon wain kaana haba ahaado midka faasiqa ahi afqahu mid markaa waxaa weeye wain kaana afqaha mid fiqhi aqoon badan haba ahaado aw aqra'a ama mid qur'aan akhrin badan haba ahaado walbaaliqu midkii qaangaarka ahaa awlaa isagaa kaga habboon min asabiyi ilmagii yarkaa isagaa kaga habboon midka qaangaarka iyo sabigana sabiga waxaa weeye waa la dabamarinaya qaangaarka la hormarin wain kaana haba ahaado sabigu afqaha midka fiqhi aqoon badan aw aqra'a ama midka waxa weeye qur'aan akhrin badan haba ahaado walxuru hadda midka weyni waa inuu marka yaqaano axkaamtu waa yaqaanaa laakiin waa laga ogyahay qiradii waa yaqaanaa laakiin waajibka ahayd laakiin waa laga qur'aan aqoon badan yahay oo saqiirka ka qur'aan aqoon badan ama ka cilmi aqoon badan ee qofan waxba aqoon la hormarin mahaye waa qof wax yaqaana laakiin waa laga aqoon badan yahay kaas aqoonta badan ma muxuu ah hadduu saqiir noqdo kan kabiirka ah marka la hormarinaya walxuru midkii xorka ahaabaa awlaa ku habboon oo kaga habboon imaamnimada min alcabdi addoonkii buu kaga habboon yahay wayastawi alcabdu cabdigi addoonkii iyo alfaqiihu ee faqiiha ahaa iyo walxuru xorkii xorkaasoo hayru lfaqiihi faqiiha kayrkiisa ahaa waa siman yihiin wayastawi waxaa siman oo ekaanayo alcabdu addoonkii alfaqiihu ee faqiiha ahaa oo fiqhiga garanayay iyo walxuru xorkii xorkaasoo hayru lfaqiihi ahaa ayaa siman waa hadda xor marka yaqaana sidaa salaadaas u dukado laakiin waa laga fiqi aqoon badan addoonka ka fiqi aqoon badan addoonku markaa xagga martabada uu fiqiga ku helay waxay kabaysaa naqsigiisa ay kabaysaa addoonnimada laakiin ninkan xorkaa uga hormari maayo walmuqiimu midkii nagaa oo muqiimka ahaabaa awlaa bilimaamati wuxuu kaga habboon yahay min almusaafir qofka musaafirka ah qofka musaafirka ah iyo muqiimkana muqiimka ayaa ku habboon wa waladulxalaali xalaasha waladkeedii ayaa awlaa wuxuu kaga habboon yahay bilimaamati min waladi zinaa waladu zinadana ka waladulxalaalka ka habboon waladu zinada caalim kasta uu yahay waxoogaa dadka waxaa weeye dhibsigiisa qalbigii ay ka dhibsanayaana badane gadaal mar baa la leeyahay walacmaa indhoolihii mihlulbasiiri midka wax arkaya masalkiisoo kale wey qofka indhoolaha iyo qofka wax arkaya hadday cilmigii iyo waracnimadii iyo qiradii iyo wixii oo dhan lasoo sheegay ka sinmaan indhoolanimo lagu dabamari mahayo indhoolanimo lagu gadaal mari mahayee waa la siman yahay qofka indhaha arkay qofka wax arkayana hal sifaahu ku wanaagsan yahay qofka indhaha leeyna hal sifaahu ku wanaagsan yahay lidaa labadoodu waa siman yihiin marka qofka indhaha qabaa wuxuu ku wanaagsan yahay indhoolaha kaga wanaagsan yahay inuu nijaasada iska ilaaliyo nijaasada iska ilaalinteedu uga wanaagsan yahay qofka markaasi indhaha leeyna qofka indhaha qaba wuxuu kaga wanaagsan yahay khushuucu kaga wanaagsan yahay wax markaasi indhihiisu ay qabanayaan iyo waxay hadaaya qabteen oo qalbiga weli ku jira iyo midna lama arkaba waa khushuucaya asaga faslun hadaakani faslun weeye yustaxabu waxaa la sunneeyaa allaa yaquuma inuusan istaagin maamuumku inuusan istaagin ilaa bacda faraaqi liqaamati maamuumkii waxaa laga hadli maayo qof kasta axad ba laga hadlaya allaa yaquuma axadun axad inuusan istaagin oo musalliinta ka midihi ilaa bacda faraaqi liqaamati iqaamada faaruqideeda bacdigeeda maahan haddii salaaddii la aqimayo
in amarka waxa weeye qof meel fog ka soo istaagayo safka hore ku soo hormaraya waa gaar xirfo kala wata haddii kale meeshaadii aad ku dukan lahayd joogto waa fadhiso ma istaagaysid qad qaamati salaatu marka la leeyahay macnaheedu wuxuu yahay qarubat qiyaamuha u istaagideedii baa dhawaaday qad qaamati salaat markii uu imaamku muqiimka qofka aqimaya uu leeyahay ay qarubat qiyaamuha salaada u istaagideedii baa dhawaatay wali looma istaagin marka wali aadan istaagin marka qad qaamati salaat marka la leeyahay Allahu akbar laa ilaaha illa allah markuu leeyahay marka istaagaysaa sidaas weeyaan wuxuu yiri وتسوية ويستحب وحكى الله سنية تسوية صفوف تسميدودنا والله سنية والأمر أمرنا والله سنية بذلك تسوية أصل ليس أمره إن مركا حوي ليس أمره أي الله سنية واللي يرادو استووا ورأكاذا ومن الإمام والأمر أمرك من الإمام إمامك بأكدو درنام بدين يهوي imaamka xaqiisa ayuu aakadu adayg badan yahay sunannimada isagay mu'akkad u tahay inuu isagu amro oo markaa waxa weeye dadka yiraahdo istawu oo qowlan wa ficlan ku amro wa afdalu sufufta kan ugu fadliga badan al awwalu midka hore way sufufta rijaasha al awwalu fal awwalu way lirijaal ragi xaalay sugnaadeen sufuftaasi صفوفta ragga u sugnaaday al-awwal midka hore weeye fal awwal midka inta kala u horeeyo weeye al-awwal fal awwal saasu weeye kaasa ugu horeeyo xadiiskii baa u daliil noqonaya nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam khayru sufufi rijaali ragga sufuuftooda kan ugu khayrka badan waa xadiis sahih muslim أولها كان وجهرية وشرها كان وشر بدنا آخرها وخير صفوف النساء وين كصفوف تودا كان وخير كبدننا وحوي أي مع غيرهن مرك غير كود لو رجع لدو كنيان آخرها أي وخير بدن صفك قدام بيو وشرها كان وشر بدن أولها وكان وجهرية رجع حاجة أي وين كان وشر بدن وتجره وحالك هذا إمامة الفاسق فاسق إمام نمدي سوى لك هذا والأغلب في بيج قبكين إمام نمدي سوى لك هذا مد بيج قبه إنه مركا وحوي ويدا إمام بان نقنايا وكراهي أنصح يسادو يستخدم إنجاسدي إسكان قصيف عن إسكايلالي وهو أغلب كل شيء الذي كيوي لم يختتن أن لجودين وي كاس إمام نمدي سوى لك هذا والمبتدع وإمامة المبتدع بالك هذا كان بدعي إمام نمدي سيبا كراهية وأمد مركب بدع نمو أي كسي من تهاي وأن لقو قال نما حكمين بدع نمدي سبدع نمدي واحد جبت مركاسي مكفرة ولو قال نما حكمية مركا إسلام كيورن قالوا يقانا كاس بدع نمدي واحد قدبه وحوي أما بمحوها بعثك إنكرسن أما وحويان وحيابا وين مركاسي إسلام كو خلافي kaas laga hadli maayo waa mid markaasi bidcinimo ay ku eg tahay bidcinimadiisu waa karaahiyo wa tamtaami ayaa la kahdaa imaamu tamtam ta badanahaasi wuxuu yiri imaamnimadiisi baa la kahdaa midka waxa weeye taada ku celcelinayo ta mugeeya وهو الذي يكرر تأذ مجين يا جراعة يا ماشي تأسوقشوا مستقيم أيولية مركا يول فاء فأبدنها سوي كاسي وحوية وهو الذي يكرر الفاء فاء إن كسر فاء يسمى كتيرين بفتحة قرويك كلا يفعل مركز مجين ياهو
والواء واو بدن isagana loo karaahiyo ku dayashadiisu karaahiyo imaamnimadiisa ayaa karaahiya marka waa shigayaa wakada sidaas oo kale ta waxa la mid ah tukrahu karaahiyo noqonaya al jamaacatu jamaaco fi masjidin masaajid dhexdiisa in lagu jamaacayso masjidka lahu imaam uu sugnaa imaamka suraatibuna joogta wal xaal huwa imaamkaasina ghayru wa huwa xaal huwa masjidkuna ghayru madruuqin uu yahay mid la marayo ghayrkiis مسجد غير مدروق أي مسجد حافظة أو جماعة حافظوا هالمر كدو كذان كرق مدان إن يدو جماعة دكدين إمامك الراتب كها أوتشيء أنت جماعة دينكو آتمادان كأوغتان جماعة كله وكراهيو لماذا وحكراهي الله قد مركا إن مركاس يجي لفتركودي يضدك شكيان ويرادان إمامك يضد كانت تهميستين imaamka raatibka ayay tuhumeysteenoo ka shakiyeen sida darteeda marka imaamka waxba ku jira dadka oo dhan haday ka goosteen si aan loo dhihin ayaa laakiin haduu masaajidku madruuq yahay ama imaamkii uu isagu muxuu ahaa ajiso waxa la leeyahay markaas ma dhib ma laha markaas مساجد مدروق وحال مريا مساجد سوق كيالا أو مساجد وضع كيالا ويو انتا سوق رع إيمانا يرع كلا إيمانا يرع كلا إيمانا يلوق عادل هذا أول إنه السيدة سرع عمر ويما هذا مركا رع كسوا سكوا إيمان وسجى مع سنة تهم ماشي إيمان بيس مركز إلا إذا خشيين وعبصدا مويه فوات فضيلة إلا إذا خشي إن جمعان إنه عبصدا مويه فوات فضيلة أول الوقت فضيلة دي تجد إنه كعبصدا مويه ولم يخشى فتنة أوسن كبقين جمعان وايمد مساجد كإمامك الراتب كأهانا ولي موسن تشين مركز جمع كلنتي ما صلاة دي إسك أوكتين أدي كعبصدان imaamka raatibka ay isagoo wali tujinin tukashada ay tukanayaan in awal waqtiga fadiiladiisi ka tagto haday ka baqaan fadiilatu awal waqti waa iska tukanayaan fitnana aysan ka baqin waa imaamkana fitna aysan uga baqin inuu dagaal iyo waxa way calaad oogo hadaysan taasna meesha ka baxdo fadiilatu awal waqtina ay ka baqaan inay ka tagto marka waa loo ogolaanaa inay tukadaan laakiin hadii imaamka ay fidnaysa ka baqaan iyo dagaal inuu ku oogay iyo maxaa salaada loo tujiyo anigoo maqan iyo waa suganayaan ama furaadaab ay u dukanayaan wayundab waxa la sunnaynayaa an yajhara imaamku inuu la jahro bitakbiiri takbiirta inuu la jahro ayaa la sunnaynayaa imaamku inuu takbiirti la jahro takbiiratul ihraamki iyo takbiiratul intiqaalaadki iyo waxoo dhan وبقوله إنه لجهره قول كيسا سمع الله لمن حمده إنه لجهره والسلام سلامتنا إنه لجهره تاسودا وعلى سنين إياه ويوافقه وحانك وافقيا المسبوق وافقيا في الأذكار أذكارته ويوافقه إمامك وافقيا المسبوق كي لقدغي في الأذكار أذكارته وافقيا التحيات كده حيادا كساحرته إمامك كسا التحيات بآخر ما هيو أدي رجعدي كوادي كوتا أما الله وادي مصدحادي كوتا التحيات كماشى كو أغنيس ولدي بكوتا هاي مركزي وحوي واد وكو أغنيسها إمامك كو راعيسا أدو التحيات ماشى كو وجد إسنا وكو راعيسا إمامك كو راعيسا والله سبحانه وتعالى أعلم.